shiwa iska dhahay habeenkii sabtiga ay hadana habeenkii axad soo galeysay sabti bixis ilaa maalin sabti u sheegay mugti habeenkii axad ay soo galeysay hadana waxa arkay cunuga hadana qaylihiisa maqlay marka maqlaa hadda ayaga marka meesha ay joogeen meesha ay degan yihiin waxa ku dhahay Axmedow kiiska daraad ku soo gacay hadana cunug sidoo kale uu qaylinaya bal kaale waa Axmed marka meesha uu barnaamij ka arkay asagana oo ku duubay saldhigu kugu soo gudbiyay intaas aan ka warqaba qofka duubaya Axmed waa Axmed muxuu ahaa Axmed Qaasim waa sargaal waa isagan oo aniga u sheegay arinta xaafadda markaan mid qolkiga iska galay xoogaa markaan uu iska nastay waxa maqlay cunug yar qaylidiis oo aad u qayliha oo zaid loogu garaaca marka xoogaa waxaan isiri waa hooyo cunugeeda canaanane waa iska dhaaf in yaraan xoogaa sii joogay waa joogi waay waxaan go'aansaday bal horta inaan ogaado waxa meesha ka socdo cunugan yarka wax dilaa iyo sababta bal inaan wax baaro wax ogaado waa soo baxay annaga guriga aan deganahay iyo guriga reerkan ay degan yihiin hal gabara iskole waxa u dhaxeeyo hal derbiga u dhaxeeyo marka wuxuu leeyahay meel yar oo xoogaa intii ishu wax ka aragta ah meeshii yartaayadan fiiriyay waxaan arkay cunugan yarka oo meel safiitaa ku fadhiyo safiito ku fadhiya waqaawaya wax dhar oo xiraya ma jirto gabadhuna waa ka soo horjeeda ayaduna gambari ku fadhida waxay haysataa marka jeedal cunuga aanuu cabooya markaas caana la siiyooya jeedalkii waxay u garaacay intii karaankeeda awoodeeda intay tahay waa dhawaaqa jeedalku waa maqlay cunuga caanihii uu caanihii markuu cabo waa soo mataga waa istaagi hadana fadhigiisa ugu dileysay ku daalay waa istaagi ku garaacay hadana cunuga caanihii waa mataga oo aamusa marka si u dilay cunuga xoogaa waa shanqartii u dhigaa markuu shanqarta dhigo kadib waxay sameeyay biyo meesha agteeda u yaalo ay gacanta ku soo qaadahay waxay ka marayay dhabarka cunuga biyo jeedalkii meesha ka sii waday cunuga markaas waa qaylaha hadana meeshii uu ka sii laba kacleeha cunuga matagi iyo wixii oo dhan isku daadshay caanihii iyo wixii oo dhan korkiisa ku yaalo meesha ay ku tumeeho safiitadu taalo marka waxa ku ag yaalo tubo biyo koobay qaadee tubada biyihii ka soo shubee cunugii xoogaa yaray gacanta waxaan uga dhahdhay biyaha wixii ka dambeeyo waxay sameeyeen afkay u galiye koobka ilaa macalsanka biyaha saan uu gadiyo qorta saan uu leexiyay cunuga marka biyo ku hanqaha ilaa uu ku hinqado qiiq oo kayda aniga marka intaas arkay waa si fiiri waayay waxaan go'aansaday inaan wax uun cadeyna ka helo si aan laamaha ammaanka aan ula wadaago muuqaal toos aan ka duubi kara ma haysane waxaan duubay cunuga ooyintiisii iyo ushi dhawaqeedii iyo ayada hadalkeedii intii aan duubay sidaasana saldhiga kula wadaago mudane gudoomiye intaasaan kuuga adiga inta ka tirsantaa aniga waxaan ka tirsanaa akademi generaalka iyo macallimiinta akademiyadan kamid ah marka adiga macluumaad ma gudbisay aniga waa gudbiyaa saldhiga la wadaag muuqaalkii codkii aan duubay oo dhawaqa cunuga iyo ushi iyo ayada dhawaq hadalkeedii iyo ay ku hadaaqaysaan duubay waxaan la wadaagay saldhiga jawaabtii booliiska ay ka baxsheen dhacdadan ayay garsoorku ugu warbixisay gaashaan la dhexe raxma salaad taliyaha saldhiga degmada